xarunta cusbitaalka guud ee magaalada Boorama waxaa maanta ka dhacday munaasabad ay xilalka kala wareegayeen mas'uuliyiin cusub oo wasaaradda caafimaadka Soomaaliland dhawaan u soo magacaawday maamulka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awda iskuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka Dr. Mustafa Muumin iyo PhD-ga Farxaan Cabdinafaqo ayaa xilalkii kala wareegay mas'uuliyiintii xilkaasi horay u sii hayn jiray munaasabadan xil wareejinta ayaa waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta xilalka la wareegaya maamulka gobolka kuwa degmada iyo kuwa wareejinaya iyo mas'uuliyiin kale oo ka soo qayb galay dhammaantoodna waxay u duceeyeen mas'uuliyiinta xilka la wareegaya laakiin Mustafa waxaan u sheegayaa maanta xilka lagu soo magacaabay uu ka duwan yahay xilkii hore waayo wax weeyaan emergency baa lagu jiraa maanta emergency baa lagu soo magacaabay marka waanaad ku xisaabtanto inaanad isuduwihii caafimaadka ee hore ahayn ee aad tahay isuduwaha emergency-ga ee caafimaadka ee gobolka Awdal shaqadaas la doonayaa in aad meeshada dhigto maanta halkan xil wareejinta aan u nimidnay ee isuduwayaasha isuduwihii hore Mukhtaar waxaan leenahay ducadii Siciid Bile ugu ducaynayay ahayd meesha meel dhaanta Ilaahay ku geeyo iskuduwahan cusub kuma cusba bahda iskuduwayaasha laakiin muddo dhaweyd buu ka yar baxay haddana uu ku soo noqday isagana waxaan leenahay ku soo dhawow sanadkii hore markuu xilka la wareegay wuxuu ugu yimid isaga oo shuban biyoodka uu jiro maantana marxaladda labaad ee uu goobjoog u noqonayaa waa ta COVID-19 waxaan u ducaynayaa labada isduwaba ee xilka la kala wareegaya isduwaha xilka laga wareejinayo waxaan leeyahay madashan meel ku khayr dhaanta Ilaahay ku geeyo kan kalena waxaan leeyahay xilkan lagu eegmaday Ilaahay ku fududeeyo waxaan kula talinaynaa in Ilaahay uga la baryaynaa isaga inuu Ilaahay xil ku astiro iskuduwihii cusub ee iskuduwihii horena Ilaahay sida ducada u aqbalo dadka meel ka khayr badan inuu geeyo Allah ta'ala wada shaqayntiina waan ila shaqayn doonaa anigoo ka soo jeesta dhinaca hay'adaha idanka Ilaahay gobolka sidii baan uga shaqayn doonaa waan idin garab taaganahay wixii faahfaahinana waxay ku qoran yihiin dokumentiga waxaan si gaar ah ballaaran ugu mahad celinayaa gobolka muhiimkiina saamul sheegay waxa weeyaan wada shaqayntu waa ugu muhiimsan shaqada marka la joogo kulli dad waxa ugu muhiimsan la bartaa waa dadka waxa laga yaabaa marka halkan ka maqan tahay dadku taqaan dad xun iyo dad wanaagsan laakiin wax badan oo u dhaxeeya jira waxaan kulley ka cudur daaranayaa intii aan joognay shaqadaas sida Mawlid sheegay khalad iyo gaf iyo isku dhac la waaymayo shaqaduna kulleyba waxay u baahan tahay go'aamaduna kulley dadka mooda farax galiyaan xilkan hore waan u soo qabtay sida looga dhawaajiyay waanan ka maqnaa muddo maantana waqtiga ayaa igu simay inaan dib xilkii ula wareego laakiin maalinta hore iyo maanta wax badan baa u dhaxeeya wax badan oo ogahay baa jira waxaanan ogeyn oo jira shalay waxaan ogaa waxa maanta aan ogaa ka sii daran marka runtii hawshu iyadoo sidaa u culus tahay haddana waxaan ka rajaynayaa bahda horumarinta caafimaadka madaxda gobolka oo barasaabka iyo maayarku ugu horeeyo runtii rajo badan aan ka qabo inaan wada shaqayn dhow leenahay aanan yeelana doono in hawshu ay sidaa ay maanta tahay iyo cabsidaa jirta inay ka fududaan doonto haddii Ilaahay yiraahdo fariinta kale ateen ku soo khulaasaynaya waxay tahay war wax badan oo la dheersadaa uu jira laakiin caafimaadka ugu dara wax la dheersado qofku intuu caafimaad qabo runtii wax kasta wuxuu moodaa inay sida ahaanayaan laakiin ninka xanuunsanaya ayaa og caafimaadku muhiimadda uu leeyahay intaan caafimaad qabno ayaanan u oran lahaa wixii fariimo iyo talooyina ha la qaato hadhow intii laga dardaar warin lahaa ama ay noqon lahayd goor ayna calaacal wax ku tareen goor dhibaata ay ku haysato waxaan jeclaysan lahaa fariimaha in sidooda loo qaato kulli xilkan aan la wareegayo waa xil caafimaad oo in badan ka soo shaqeynayay muxuu ahaa oo khibrad badan aan u leeyahay 25 sano u dambeeyay caafimaadkan yaan ka soo shaqeynayay marka insha Allah in xilka Ilaahay waa suro oo halka uu Mawlid soo gaarsiiyay aan ka sii anba qaado oo insha Allah waxa weeyaan hawl ballaaran laakiin waxa idin cadaynayaa Mustafa oo guntiga adkaystay inuu idin yimi runtii because of wuxuu og yahay xaaladda maanta aynu ku jirno oo u baahan gurmad culus kulli xilku ka maqnaa laakiin bahadu ku dhex jiray oo dhinac buu kaga jiray
runtii mustafow ilaahay xilkaa kugu astiro mukhtaarna waxaan leeyahay halkaa meel ka sii wanaagsan ilaahay ku geeyo marka isduuc cusub waan soo dhaweynaynaa waana wada joognay isduuc cusub oo horena waan u soo wada shaqaynay runtii waa nin aan aad ugu kalsoonahay shaqadiisana aan wax dhaliila umaan muujin xaaladun baa berigaan ugu timi malaa dee calafkaasaa iyo qadarka isduucan dambena waan sii sabootiyeynayaa waan u duceynayaa meeshana meel ka roon baynu geeyo waan wada shaqaynay si fiicanna waan u shaqaynay waxaana iskumanaan qaban dee shaqada waa lagu wada hadli karaa laakiin shaqaan ku wada hadalo wax ka badan sidaa u qaba iyo halkaa maanta aan tagno iyo wax ka badan iskumanaan iman isagana qadarta unbaa saa u dhacday waana sunnaa dowladnimo in isbeddel dhaco madaxweynaha maanta joogaan joogaynin oo dee kolley marun baa la beddelaya hadduu noolaado marka waa sunnaa dowladnimo in la isbeddelo ducada ka muhiima insha allah bismillaahi kariim kanna haddeer ilaahay u fudeeyo shaqadiisa kaa tegayna meel fiican ilaahay geeyo nolol wanaagsan ha ku noqosiyo gabagabadii iskuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka iyo madaxa daryeelayaasha wasaaradda caafimaadka Dr. Farxaan ayaa xilkii kala wareegay mas'uuliyiintii hore ugu dambeyntii maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama iyo mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka waxay kormeer kala duwan ku soo sameeyeen qaybaha kala duwan ee loogu talagalay dadka uu soo rito caabuqa coronavirus ee gobolka Awdal. Madiriye Ciltire wararka warbaahinta SBC Boorama.